السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا يحديث عيديد halka diga daawanaysaana waa YouTube-ka casharada caafimaadka. maanta waxaan ka hadlaynaa casharkeeni labaad ee ahaa integumentary system-ka. ana ku soo guuda jirnay oo casharkeeni koobaad soo qaadanay. maanta waxaan qaadan doonaa casharkeeni labaad oo ka warramay integumentary system-ka oo ah system ka warrama skin-ka iyo shaqooyinkiisa iyo wuxuu qabto. haddaba casharkan guud galno. casharku maanta waxaan sii wadan doonaa casharkii hore oo noo socday ahaa epidermiska. epidermisku haddaba composite waxay ka kooban yihiin ama ka samaysan yihiin keratinized salal keratina oo markaa adag oo de markaa dheer salisa kuwaasoo stratified squamous epithelium. adugu salalka dhintay iyo skinkeenu markaa ka samaysan yahay waliba qaybta ah epidermiska. It's made of waxay ka samaysan tahay 4 or 5 layers of epithelial cells. 4 layer ama 5 layer oo epithelial cells ah ayuu ka samaysan yahay epidermiskeenu. Depending on taasoo markaa ku xiran its location ahaan oo marka in the body. haddaan sii socono it contains waxay ka kooban tahay 4 types of cell ayuu ka kooban yahay epidermiskeenu. salka koobaad waa keratinocyte cell and epidermal cells which produce keratin. waa epidermal cells kuwaasoo soo saara keratin. its location ahaana waxaa laga helaa the outermost layer of the skinka dushiisa sare in human bini'aadanka. they continue waxay ka kooban yihiin 90% of epidermal skin cellska. maqaarka jirka 90% waxaa ka kooban keratin ba ka kooban waliba qaybta ah epidermal cellska. functionka haddaan u dhimaano function of keratinocyteska. functionka shaqada qabato keratintu ama cellskan keratinta soo saara shaqooyin gaar ah ay qabtaan. shaqooyinka qabtaan waxaa ka mid ah to preserve against pathogen. in wax lax kasta oo pathogen ha ahaadaan virus, bacteria, fungi ha ahaadaan dhammaan pathogenada oo dhan inay markaa jirka ka qabtaan oo markaa preserve ka noqdaan oo jirka ka difaacaan. inay to protect ka ilaaliyaan against UV radiation. ultraviolet kan cadceedu wadato inay jirka protect uga noqdaan keratintu. inay to minimize yarayso heat kulaylka badan inay qofkii ka yarayso. haddaan kasii socono melanocyte aan dan gudubno oo markaa salka labaada. cellsku haddaba daad produce waxay soo saaraan melanin. melanocyte dan gudubno cellsku waxay soo saaraan daad produce melanin. waa cellska unugyada kuwaasoo soo saara melanin. its location waxaa laga helaa skin maqaarka. types of melanin. melanin haddaba waxay leedahay noocyo. laba nooc baan loo qaybiyaa eumelanin iyo pheomelanin. eumelanintu haddaba produce waxay soo saartaa darker pigment midabeeye madow ay soo saartaa. pheomelanintuna waxay soo saartaa lighter pigment midabeeye markaa isaguna cadaan ah. shaqooyinka qabtaan haddaan u gudubno waxa weeye absorb UV waves. ultravioletka hirarka ultravioletka ay markaa iyagu soo nuugaan to produce melanin. waxaana soo saaraan iyagu melanin. haddaba bal ereyga haddaba melanin maxay tahay? melanin haddaba waxay tahay waa natural skin pigment. waa pigment waa midabeeye dabiiciya oo laga helo skinka dushiisa ha ahaadaan heerka oo tusaale ah skinka aan eye colorka isha colorkeeda in a people dadka an animal iyo xayawaanka. most haddaba depends waxay ku xiran tahay on the type nooca an amount iyo xadiga of melanin they have oo markaa qofkaas haysto ayay ku xiran tahay. haddaba hal su'aal baan kusoo gabagabeynayaa lesson-keena labaad. annagoo markaa inoo siyaarsan tahay labadii sale dambe. question waxay ku leedahay do some people have more melanocytes than other people. markaa su-aashan micnay maayo idinkaas kusoo dayaya insha allah. a iyo b bay leedahay. eeda waxay kuonaysaa ma yes ba mise waa no. labadaas soo kala cadeynaysaa. end lesson 2 gana kasoo nagu dhamaaday. jawaabta xagga hoose ee comment-ka kusoo qori doontaa. mahadsanid wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.